بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaynu soo bandhigi doonaa ducooyinkii uu xabiibka moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku ducaysan jiray marka uu safraayo. ducada safarkaasi ha noqdo markaa mid lagu safraayo diyaarad ama tareen ama baabuur iyo gaadhi ama dooni iyo markab, ama ha noqoto gaadiidka kale ee xoolaha nool sida geelii iyo fardihii iyo baqlihii iyo dameeradiiba. waxaad dhahaysaa markaa allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, subxaana aladii sakhara lana hada wma kuna lahu muqriniin waina ilaa rabbina lamunqalibuun. allahuma ina nas'aluka fi safarina hada albira wattaqwa ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. waxaad dhahaysaa marka allahu akbar, ilaahay baa weyn, allahu akbar, alla baa weyn, allahu akbar, ilaahay baa weyn. subxaana aladii sakhara lana hada, subxaana waxaa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan oo ka dheer oo ka hufan. alladii kii oo ah alle subxaanahu wa tacaala sakhara lanaa haada noo sakhiray kan aanu ku safrayno, ha noqdo markaa diyaarad, markab ama dooni, ama ha noqdo xoolaha noolba. wamaa kunnaa lahu muqriniin, manaanan ahaanin anagu kuwo markaa awood u leh in ay ayagu iskood u sakhiraan gaadiidkan aanu ku safrayno. wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun, annakuna waxaanu nahay kuwa xagga rabbigoodii barbaariyey ku laabanaya oo u noqonaya. allahumma innaa nas'aluka fi safarina haada, ilaahayow waxaanu ku weydiisanaynaa safarkayga kan ah albira wattaqwa, samafalka iyo alla ka cabsiga, oo min alcamali maa tardaa, camal iyo shaqo la qabtana waxaan kaa weydiisanaynaa midaad raalli ka tahay. allahumma hawin calayna safarana haada, ilaahayow waxaad noo kaadisad noo fudaydisaa safarkayga kanaan ku guda jirno. wadwi cannaa bucdah, waxaanad noo soo duubtaa oo aad soo dhowaysaa fogaantiisa. allahuma anta saaxibu fi safar, ilaahayow adiga ayaa ah saaxibka safarkayaga kan, ama cidda macayaga ah waa adiga oo allah ah subxaanahu wa tacaala. waalkhaliifata fi lahli, adigaana ah kii ku hadhay ehelkii aan ka nimi. allahuma innii acuudu bika, ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa min wacthaa'i safar, dhibta iyo daalka safarku uu leeyahay, wa ka'aabata almandar, iyo muuqaalka kiisa xun, wa suu'i lmunqalabi fi lmaali waalahli, iyo xumaanta ay leedahay inaad noqotid xoolo xun iyo ehel xun. macnaha waxaa looga jeedaa inaanu dib ugu noqonno dhib xoolaha ah iyo dhib xagga ehelka ah. waidaa rajaca, markaa hadduu soo laabto uu safarkii ka soo noqdo, qaala hunna, ducadii buu akhrinayaa in iminka tilmaamaynay. wazaada fiihinna, wuxuuna ku daraya uu ku kordhinayaa aayibuuna, soo noqonay oo soo laabanay, taa'ibuuna, ilaahayna uu towbad keenay subxaanahu wa tacaala,
عابدون إلهنا عابدنا سبحانه وتعالى لربنا حامدون ربي يغنكم مهدنا يوم هدنقني سبحانه وتعالى